Senator Cabdiwaaxid Goonjeex oo ka mid ah mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo si gaar ah ula hadlay telefishinka Somali Cable ayaa sheegay in aysan jirin xiriir wanaagsan oo wada shaqeyn oo xilligan ka dhaxeeya senatarada aqalka sare iyo maamul goboleedyadii wakiilada ay ka ahaayeen waxaana daliil ahaan u soo qaatay in aysan jirin hal ajande oo ka yimid maamul goboleedyada kaasi oo ay u soo gudbiyeen aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maadaama loo baahnaa waxyaabaha ay tabanayaan in si nidaam ah aqalka sare ay ugu soo maraan laakiin waxa dhabta ah oo aan ogahay ka warqaba waxa weeye ki arin maamul goboleedyo inta soo gudubsadeen oo aqalka sare yimid oo aqalkii sare la soo dhexdhigay oo laga hadlay ma u jiro marka waxaad moodaa aqalka sare in maamul goboleedyadu inay soo maraan oo adeegsadaan ay hilmaameen oo aad moodo inay iyaga toos dawladdii dhexe ay ula xiriirayaan waxaan marka noola muuqataa arrinkaas inuusan sax ahayn waxaan nuxurka laho qiimaha lahu ay yihiin inay empower gareeyaan oo awood siiyaan aqalka sare soo maraan danahooda u soo gudbiyaan xildhibaanadoodu soo jeediyaan ka bacdina aqalka sare oo u taagan maamul goboleedyadu uu xuquuqdoodii maro inta ii muuqata waxaad moodaa marka inay garab maraan xubnihii aqalka sare ama aqalkii sareba si guud oo aad moodo ama waxa kale helaan ama hay isku dhacaan ee dawladdii dhexe ay toos u aadayaan marka kala maqnaantaas baa jirta aqalkii sare iyo maamul goboleedyadii aqalka sare xilligan waxaa khilaaf muuqda uu kala dhaxeeya aqalkii golaha shacabka ilaa iminkana lama xalin adeer dagaal kama dhaxeeyo waxna kama dhaxeeyaan khaas ah laakiin macnuhu waxa weeye dawladnimadu shuruucda dalku inay labadaba soo maraan weeye in la isu gudbiyo weeye in ay wadaagaan oo qolaba markay wax ka soo bilowdaan qolada kale u soo gudbiso la waxeeyo weeye waxyaalo badan waxaa jira in inta dawladda ay la soo wada maro oo la isu gudbiyo loo baahnaa oo aan laysa soo gaarsiin baa meesha ku jira midda kale dhibaatada meesha ku jirta waxa weeye aqalkii baarlamaankii sagaalaad markuu jiray dastuurkan hadda jira baa jiray awoodda dalkana kaasuu ahaa waxaad moodaa golaha shacabku inuu u dhaqmayo sidii markuu aqalka halka aqal jiray oo kale oo mararka qaarkood ay inay hilmaameen aad moodayso aqalka sare iyo kaalinta uu leeyahay ama waxa uu leeyahay arrimahaas oo aad moodo in ama la hilmaamay ama laga booday baa meesha ka jira colaad ma taalo col lama noqon karo barkee hal qaran baa loo adeegaa hal baarlamaanna waa leeyahay Senator Goonjeex ayaa sidoo kale waxa uu ka digay dagaalada ka soconaya qaybo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan shabeellada dhexe isagoo ku tilmaamay inuu yahay mid aan wanaagsanayn oo mar kale dhiig ku daadanayo waxaan u aqaanaa mirama dhale faa'iido makeene geeri iyo asay iyo gablanwade wax kale oo uu kordhinayaa ma jiro intaas naarkeene lagu cadaab mudanayo anigu intaasaan u aqaanaa marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay inta u noqotaan intaas looma habran karee colaadda ha la joojiyo Soomaalinimo iyo qarannimona ha lagu fakaro